For our next speaker, we have the Senior Advisor of Diaspora of Ministry of Foreign Affairs of Somalia, Abdisalan Yussuf, with the topic of Somalia National Diaspora Policy. So let's invite him up to the stage. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idin salaam dhamaantiin. All protocol observed. My name is Abdisalan. I'm Senior Advisor of Minister of Foreign Affairs, Department of Diaspora Affairs. Before I go to my presentation, marka hore waa idin salaamay. Salaan kadib waxaan rabaa inaan briefly wax yar idinkaga taabto policy-ga aan rabo inaan wax ka sharaxo kaasoo ah siyaasaddii qaran ugu horeysay abid ay yeelato Soomaaliya. Saawada ogsoonahyba qaran burburkii kadib Soomaali badan ayaa wax u kala hayaantay dhammaan daafaha dunida sababtii doonto ma aragtay ha kalifto. Muddo kadib markii ay dowladdeenu soo yaraa ma aragtay kacday oo aan ka soo baxnay waxa la yiraahdo kacakufkii qaran ee ku dhacay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda waxay nasiib u yeelatay 2013 inay yeelato wax la yiraahdo waaxda qurba joogta Soomaaliyeed oo aysan awal hore u lahaan jirin. Soomaaliya bariga dhexe ee dowladda kacaanka waxay lahaan jirtay wax la dhihi jiray waaxda danaha Soomaaliyeed, laakiin later kadib markii la garwaaqsaday la ogaaday potentiality-ga ahmiyadda muhiimadda diasporada ee u leedahay iyo sida wadamada sideenoo kale ka soo baxay ama ka soo kabtay ama ku dhacay qaran burburka siday uga faa'iideysteen diasporadooda, waxaa la go'aansaday in la sameeyo wax la yiraahdo waaxda jaaliyadaha iyo qurba joogta Soomaaliyeed. Markii la sameeyo idoos 2013 later de marka sideeda wax la sameeyo waa inay jiraan wax policy ama guidelines loogu talagalay waxaas inay hagaan. Later waxaan sameynay we have inaan maaragtay sameyno wax la yiraahdo siyaasadda qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed, Somali National Diaspora Policy, taasoo ay naga caawisay hay-adda IOM oo ay maanta nagala joogaan team ka mid ah Yvonne iyo Shakalule, but fortunately Shakalule, when she is in Somalia, she has taken another name. So marka kadib markaan sameynay waxaan ku guuleysanay sidii policy-gaas uu noqdo policy ka turjumayo mid sax ah, effective ah, context-ka ka turjumaya, annagoo ka duuleyno ama ka fikirayna in policy-gaas uusan noqonin policy ku dhamaado mid inta la qoro la iska dhigo sida dhacday marar badan maaragtay sharciyo badan iyo waxyaabo badan oo dalka iyo dadka ahmiyad u leh inta la qoro laakiin haddana aan ka turjumaynin waaqiciga iyo context-ga. Waxaan go'aansanay inaan uusan noqonin policy laba qof oo waxa loogu yeero expertise inta loo hire gareeyo la qoro kadibna meel iska dhigo. Waxaan go'aansanay inaan tagno dhammaan maamul goboleedyada dalka maadaama dalku yahay federal. Dhammaan maamul goboleedyadaan tagnay annagoo marka sameynayno waxa la yiraahdo consultation qolaba maaragtay ii sheeg ugu tagayno maaragtay state-ka kadibna kala tashanayno inay maaragtay input ku yeeshaan policy-ga si hadhow u noqdo policy effective ah ka turjumayo ummadda oo dhan, uusan u noqonin policy laba qof iyo saddex qof intay isu yimaadeen qoreen dadkuna aysan ka warqabin. Waxaan tagnay Kismaayo, waxaan tagnay Baydhabo, waxaan tagnay Jowhar, waxaan tagnay Garowe,
sidoo kale muqdisho dhammaan intaas oo dhanna waxaan u samaynaynay in policygan maadaama uu yahay policyga ugu horeeyay ee Soomaaliya abid ay yeelato inuu noqdo policy effective ah ka turjumaya waaqiciga ka turjumaya baahida dadka ka turjumaya aayaha iyo mustaqbalka qurbo joogta Soomaaliyeed sidaas si la mid ah waxaan ku sameynay consultation waxaan ku sameynay gobolka Banaadir annaga maaragtay aanan ka tagaynin sidaas si la mid ah si specifically waxaan u sameynay haweenka waxaan u sameynay consultation gaar ah sidaas oo kale qurbo joogta waxaan u sameynay Zoom maaragtay consultationo maadaama maaragtay uusan Soomaalida wadamada ay ku nool yihiin aad u badan tahay waqti ahaan iyo financially aysan noo suurtagelaynin inaan maaragtay dhammaan tagno laakiin as a hybrid waxaan sameynay in maaragtay aan la sameeyno consultation all that things together waxaa noo suurta gashay in aan maaragtay sameyno waxa la yiraahdo Somali National Diaspora Policy kaasoo waaxdu ay maaragtay hayso noqonayana policyga hagayo diasporada maadaama diasporada ay yihiin untapped resource adduunkana maaragtay aan rabno inaan uga dayano sida wadamada sideenoo kale wadamada ku horumaraan raadin diasporadooda in sidaas si lamada annagana aan uga faa'iidno runtii waqti badan ay nagu qaadatay finally waxaan nasiib u yeelanay in maaragtay policygii la geeyo cabinetka la baasgareeyo uu noqdo mid sharci ku soo baxay effective ah oo runtii hadda aan ku dhex jirno in the mid of policy implementation oo ah sidii maaragtay siyaasaddaas qaran ee qurbo joogta ay u noqon lahayd mid meel marto oo dhaqan gasho runtii waxaan rabaa inaan halkan maaragtay ka xuso saaxiibkay agaasimooyga aan jeclaan lahaa inaad hal sacab ii siisaan agaasime Ibrahim Guro Maxamed waa agaasimaha waaxda jaaliyada ee qurbo joogta hadda inkastoo ay maaragtay waaxdu dhowr agaasime isu soo bedeshay runtii agaasime Ibrahim waa ninaan aad u wada shaqeyno runtii aadna uga go-an tahay in diasporada aad looga maaragtay faa'iideysto runtiina waqti badan iyo juhdi badan la geliyay in maaragtay policygan uu noqdo policy effective ah la apply gareeyo runtiina ay u noqoto wixii sababi lahaa in diasporadu dalka dib ugu soo laabtaan ay sameeyaan waxyaabo fara badan oo maaragtay runtii tangible ah intiina la socoto intaanan hadda ogeynba ustaad maxamed ibraahim halkan ka jeediyey waxaan qabanay waxa la yiraahdo Soomaaliya waxaan ku qabanay Somali Diaspora Investment Forum oo ah the first ever diaspora there was another investment conferences lakin this was very unique to diaspora oo aan ula dan lahayn markaan qabanaynay dadka qaar waxay aad noo weydiinayeen sidee su'aasha uu maaragtay ustaadka meesha ka rays garay ahayd waxayna weydiin jireen Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay maanta sida ay taagan tahay how come inaad conference qabataan oo aad tirahdaan ugu yeertaan Somali Diaspora Investment Forum laakiin anaga waxaa noo muuqatay wax kale because mar walbaba amni iyo horumar wuxuu yimaadaa marka la sameeyo horumar la sameeyo that's the only thing anaga noo muuqatay marka intaas waxaa marka si briefly aan idinku dul marayay waaxda iyo maaragtay hadaafteeda guud we can start the presentation presentation keena wuxuu daranaan doonaa waxa la yiraahdo diaspora background diaspora framework Somali National Diaspora Policy identification of diaspora diaspora engagement requirements and diaspora engagement best practice tusaale markaan ka hadlayno identification of diaspora markaan sameynayno consultationka waxaan tagnay saan sheegnay maamul goboleedyada qaar ka mid ah waxaan weydiinaynay who is diaspora yaa u taqaanaan diaspora marka Soomaaliya la joogo
كلي انتينا بدن أما كمقنا ودن كأما جوات قانان diaspora markii la isweydiiyo dadku waxay u yaqaanaan kaliya dadka Yurub iyo America ka yimaado qofka South Africa ka yimaado iyo Kenya ka yimaado ma yaqaanaa waxa la yiraahdo diaspora waxay ku leeyihiin ninkan diaspora isu ekaysiinaya soo marka diaspora waa qof kasta ee wadankiisa ka haajiray una haajiray wadan kale sababtii doonta ku kaliftay xaaladii doontan ku kalifto so marka that was the challenges we faced when we were making the consultation in the FMS because the question we have raised was who's diaspora. Some of them they responded we know only diaspora the ones who come from North America and Europe. So okay. Does Somali attract diaspora? Yes. Somalia attracts its diaspora through direct engagement, namely human capital, social capital, and skill transfer. That's what I am always do. Somali government recognizes the power of its diaspora, the role of the diaspora plays in their home country, economic, social, knowledge transfer, beyond humanitarian aid remittance. Saamna iba maaragtay diasporadu kaliya ma ahan maaragtay wax ku kooban waxaan soo sheegnay remittance-ga iyo maaragtay iyo humanitarian-ka wax ka baxsan ay sameeyaan haddii aysan diaspora ahaan lahayn xilligii qaran burburka ama 30 sano ee aan maaragtay wadankeena uu ku jiray chaos and confusion without diaspora it was very hard to be survived. Okay. And this is the prime ministerial degree oo la soo saaray markii la pass gareeyay last year one with the policy was passed to the cabinet. It has issued with a degree number 124 waa markii la ansixiyay oo golaha wasiirada la horgeeyay policy-gii cabinet-kii ay pass gareeyeen officially waxa lagu soo saaray waxa la yiraahdo decreto waa mid hadda idin muuqato you go next. Okay maxaan halkan u joognaa maanta just diaspora engagement it kind of yeah you go next. So investment as a development tool, we can use sometimes diaspora contribution to communities of origin in terms of economic, remittance, investment, export, tourism. Just like also intellectual skills, know-how, knowledge, network, social culture and philanthropy, building up civil society, showcasing culture, charity and donation, also political lobbying, advocacy, mediation, all that things maaragtay waa part of development-ga oo maaragtay community-ga ay contribute garayaan. And all diaspora facts waxaa la yidhahdaa 3 ka mid ah 3% of the total world population. That's more than 270 million people live life outside their birthplace. Studies suggest that the figure will raise by 2.9% annually, only past 2 decades. Remittance region and estimated USD 790 billion globally in 2022. As of 2021, remittance accounted for over 10% of GDP in 29 different countries all over the world. sidaas la mid ah diaspora waxaan ku dhex jirnaa weli waxaa la yidhahdaa 2 million of Somali diaspora are estimated to be in countries of North America, Europe, the Middle East, Australia, Africa, according to report ay soo saareen UNDEC ama UNDESA
UN DESA. Sidaas la mid ah 1.3 to 2 billion remittances are channeled into Somalia every year. Sida laga soo xigtay ama aan ka soo xigin waxa la yiraahdo UN DESA 2020. Remittance amounts are reported to account for over 20% of the country's GDP in 2022. Sidaas la mid ah remittances to Somalia are equal to official development assistance received by Somali government. Waxaa la isbarbar dhigaa oo la yiraahdaa inta badan deeqaha waddanka soo galo waxaa lagu qiyaasaa 2 million. sidaas la mid ah remittance aan wax ka soo galo dhinaca diasporadan ayadana waxaa lagu qiyaasaa 40% of Somali household rely on diaspora remittance. Meeshaan waxaan ka ogaan karnaa marka sida diasporada loogu tiirsan yahay qoysaska Soomaaliyeed 40% waxay maaragtay ku tiirsan yihiin waxa la yiraahdo xawlaadda ka imaanayso diasporada. taasoo Ustaad Ibrahim Maxamed Ibrahim hadaa uu ka sheegay ka dhawaajiyahay waxyaabaha anaga laftarkeena markaan policy-ga sameynayna aan ka fikirayno waxa ka mid ahayd generation-ka hadda joogo sida tusaale caashucuud oo kale walaashay waxay taqaanaa inay maaragtay ay jiraan dhaqankii cajiibka ahaa ee quruxda badnaa Soomaaliyeed in la caawiyo habaryar eedo adeer daris maaragtay dugsi quraanka qofkaas la dhigan jirteen classmates waxaas oo dhan to support laakiin gabadha ay dhashay ee ku dhalatay maaragtay banaanka it is very hard gabadha kale ee cunug kale ay sii dhasho meesha uu ka bixi doona soo marka with the help of this Somali national diaspora policy wuxuu suurtagelin doonaa in la ilaaliyo ama maaragtay la engage gareeyo engagement-iga aan ku sameynayno diaspora wuxuu suurtagelin doonaa in jiilkaas hadda joogo aysan meesha ka bixin because they never know adeera jiro abtiya jiro iyo waxa daa la sheegaya aabaha ku soo wacay instead of ay dhihi lahayn awoowa ku soo wacooda ama ayaga ku soo wacay soo marka waxyaabaha aan aad ka maaragtay aan uga fikirayno mustaqbalka in waxaas meesha aysan ka bixin haddii ay ka baxaan waxa marka joogsan doono dhaqaalaha aan ka sheekeynayno oo dhan maaragtay waddanka soo galo remittance ku imaado diasporada laga helo lagu support gareeyo imagine haddii xilligii qaran burburka ay ku soo aadi lahayd maaragtay sidaas la mid jiil labaad ama jiil saddexaad oo waddanka banaankiisa joogo oo waxba ka ogeyn yani way adkaan lahayd laakiin xilligii qaran burburka maxaa dhici jiray maaragtay in qof ay maaragtay classmates ahaayeen saaxiibo ahaayeen nolol soo wada qaaday inuu wuxuu yiraahdo xaaladda saan waaye la support gareeyo maaragtay haba yaraatee qof walba wuxuu tari karo uu taro frameworks for diaspora Somali foreign policy recognizes the diaspora as one of its 5 main focus area and Somali's national development plan also highlights the importance of Somali diaspora community towards the country's development efforts. يعني Somali diaspora policy يعني أهمية la siinayo NDB 9 ka xusayo sidaas la mid ah foreign policy ga ya maaragtay recognize gareynayo and human capital development strategy also crucial strategy human being or brain gain due to large number of returning highly skilled Somali from the diaspora in maaragtay dadka xirfadaha sare leh waddanka dib ugu soo laabtaan si dalkooda ugu faa'iideeyaan sidaas la mid ah Somali national diaspora policy also set to ensure an inclusive and coordinated effort to provide guidance for the initiatives that facilitate diaspora participation in national transformation plan inay ka qayb qaataan ayada laftirkeeda in both policy framework and the NDB or national development plan. Okay, Somali diaspora is of a great importance towards sustainable development in Somalia. Diaspora policy, sorry, you go up. Is this? Okay. Diaspora policy guiding principle. Somali diaspora policy ga guiding principle guiding principle recognition, engagement,
coordination, youth, gender, accountability and inclusive. In qof walba maaragtay uu qayb ka noqdo. Diaspora policy thematic area meelaha maaragtay thematic noo ah waa governance, diaspora engagement in trade and investment, data information, safety and security, gender mainstreaming, health, education, integration and return. Dadkii inay isdhexgal sameeyaan dib loo soo celiyo. Diaspora policy short-term priorities. waxyaabaha maaragtay u ah short-term priority-ga noo ah waxaa ka mid ah policy publicity. oo hadda halkaan u taaganahay in maaragtay dad badan oo aanan ogeyn policy-ga inuu jiro, Somali national policy inuusan jirin, waxaasoo dhan in la ogaado. sidaas la mid ah engagement and relationship, in la sameeyo engagement, which is the best diaspora engagement. waaxdu waxay leedahay afar section oo muhiim ah. mid ka mid waa engagement, oo migration engagement, waxa la yiraahdo diaspora investment, iyo mid kale. Okay, culture and research. sidaas la mid ah networking groups and associations, effective communication strategy, diaspora sector based bankable projects. Diaspora policy long-term priorities waxaa ka mid ah diaspora direct investment. midka hadda idinkaga sheekeynayna u qabanay more than 350 diaspora inaan maaragtay u sameynay wixii waddanka hore u maalgashtayna inaan u sameyno dhiirigelin, kuwa kalena aan ugu baaqno inay waddanka imaadaan oo dalkooda ay maalgashtaan. Coordination and mechanism, education transfer, in maaragtay aqoontoodii kuwa aqoonta lahaa inay dalka intay yimaadaan waddankooda u faa'iideeyaan, maaragtay sidaas la mid ah. Skill transfer, in macna la soo gudbiyo xirfadaha aqoonta. Identification of diaspora, the first step in the diaspora engagement process involves in a holistic identification of who your diaspora are through clear definition, location, mapping and connection with them. يعني يا diaspora in la ogaado sidaas la mid maaragtay meelahay joogaan, diaspora mapping la sameeyo, waxaasoo dhan waxay qayb ka yihiin identification of diaspora. Okay. Diaspora engagement area, human capital, skills and knowledge transfer, social capital, of ideas, proposals and options to develop domains, culture capital, promotion of Somali culture and building country's good image. in la gado de waddankeena maanta yani markii la geliyo Somalia waxa soo baxay waa aragnay Soomaa meel balaayo ka dhacday, meel qarax ka jiro, meel la isku dilo, meel la isku afduubto, waxa soo dhan yaa bedeli karo, anaga bedeli karno. Maxaa la yiraahdaa charity begins at home. sidaas la mid ah direct diaspora investment in la sameeyo diaspora ee waddanka maalgashtaan. Promotion of tourism in maaragtay la promote gareeyo hospitality iyo dalxiiska, awareness on tourism sector, opportunity in Somalia, fursadaha ka jiro. sidoo kale bridgeways waxa laga qorayba waxa laga sameeyay research laga sameeyay oo team ay soo bandhigeen active diaspora engagement requirements. diasporada waxyaaba laga rabo inay maaragtay engage gareeyaan integrated data and information system, organized participation of the diaspora councils, brain circulation, knowledge and skill transfer, promotion of investment, trade and economic influence, just like remittance, diaspora tourism and cultural exchange programs, increased diaspora philanthropy, diaspora participation in good governance and democracy. marka laftirkooda ka qayb qaataan good governance iyo democracy iyo waxa soo dhan ay ka qayb qaataan. Diaspora engagement best practice, just like collaboration, diaspora organizations, diaspora funding and foundations, diaspora associations, diaspora digital platform, diaspora conferences, workshops and events.
waxaasoo dhan waxay qayb ka yihiin maaragtay engaging best practice. Diaspora volunteer projects, diaspora laftirkooda inay inta waddanka imaadaan ay sameeyaan maaragtay volunteer projects si maaragtay dalkooda iyo dadkooda uga qayb qaataan horumarkiisa. Diaspora voting, and that's what we are planning in maaragtay because embassies inay ka xuquuqdooda yeelaan. Thank you for your attention. runtii aadan idinkaga mahadcelinayaa. raalli ahaada waqtigana waa idinku dheereeyey, waxaa laga yaabaa inaan maaragtay maadaama waqti badan aa fadhiseen waa raalli ahaada. daas intaa ay ahayd inaan soo jeediyo. haddii aad hal iyo laba ku daraysaan, haddaad su-aal ii weydiinaysaan, haddaad tala iyo recommendation ku daraysaan, you're welcome.